الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توحى فرحة إنه عديننا هاي مامل كسر شركة أورنج إن جوجنو مجالدا جروي قول مامل قولات كان بوتلان رنانتي وحروا إن أمهد عليو الله مهد علتي سكدب مامل كشركة أورنج بوتلان ستيت وحقيقة سيق روح بدن وسو دويي مجالدا waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta anigu kaga faa'iideysanayo fursadda oo dabaraani media uu siiyay Orange waxa ay tahay iyo waxa ay qabato iyo wixii bulshada u qabatay inta inaan ku soo koobo fursadan sidoo kale meesha aan ka hadlayaan maanta aan ka soo jeedinayo warbixintan waa xafiiska shirkadda Orange ee magaalada Garowe شركة أورنج وحالة أساسية لبض كن يو تبانكي وعيسو شقينيسي شركة مدة بدن أيسو شقينيسي شركة وحالة إقابته وحاكمة برنامج هذا السيرفيس كام أذيجا وحلو يقان ودن كين مات آد وير إن وضد أي كشقيان لكن شركة وأوبررت برنامج كاسنة كشقيسو شركة وحالة سيرفيس كشقيس مركو حاكمة كو حاجة وحبرشة education service كا أو education service كو حنقول شقينا فرصة وحبرشة أو حنقول كان أرداد الصومالية دلك الدبديسة جار أهان جامعة ميدوغ يوروب أو قابو حنقول صوت أمانة scholarship 75 scholarship 50 scholarship 25 scholarship marwali waxay ku xiran tahay jaamacadaha aan ka keenayno iyo duruufaha markaas ku hareeraysan sidoo kale shirkadda waxyaalaha aad ka xoog u saartay marka waxbarashada la joogo waxa kamid ah jaamacadaha dawliga oo dalkaasi Turkiga aan rajaynayna sanadkan aad u aleedmo tiro badan oo arday inay ka faa'iideysan doonto waxyaalahan u joognay kamid tahay maalmahan Puntland inaan ardadii iyo maamuladii iskuulada intaba inaan u sharaxno fursadda shirkadda Orange ee keentay marka insha Allah ta'ala dhawaan waxaan rajaynaynaa bishan oo hadda ku jirno June 30keeda ilaa July 10keeda imtixaan loo yaqaan YOS inuu ka dhici doono magaalada Garowe oo ay ka soo qayb gali doonaan dhammaan ardada ku nool maamul goboleedkan Puntland oo gaalkacyo iyo Boosaaso iyo Qarda iyo dhammaan meesha ay ku gali doonaan marka imtixaankaas waxaan rajaynaa ardada Puntland inay ka faa'iideysan doonaan adwaaledmo oo sida ugu quruxda badan ay ugu faa'iideysan doonaan maadaama xafiiskii loo keenay oo xafiisadii aan gaarsinay ilaa gaalkacyo ilaa Boosaaso xafiis oo shirkad ay ka furtay sidoo kale shirkad waxa ay ka shaqeyso waxa kamid ah adeega caafimaadka oo heshiis waxaan kula jirnaa isbitaal caalami oo medicine hospital lagu magacaabo oo kamid isbitaalada ugu waaweyn oo ku yaal Istanbul oo u shaqeey qaab international oo aan rajaynayna adwaaledmo bukaano badan aan u dirnay oo just hadan diyaar aan u nahay reer Puntland qof waliba xanuunsan oo danaynayo inuu isku soo daaweeyo Turkiga oo kala caafimaad uu aado shirkadu waxay diyaar u tahay inay fududeyso oo processkaas from A to Z ee ka caawiso soo isbitaalkii oo u gaaro oo isku soo daaweeyo qiimo macquul oo isku soo daaweeyo adwaalid insha Allah shirkadu waxyaalaha kale ee ka shaqeyso waxa kamid ah barnaamijka iibsashada guryaha Turkiga sidoo kale familada rabo inay Turkiga mesela ay tagaan oo ay guri ka iibsadaan shirkadu waxay diyaar u tahay familadaas inay caawiso ay ku caawiso inay meeshaas ay gaaraan oo guryahaasi fudud ay ku iibsadaan oo qiimo macquul aan u iibino oo just meesha markay tagaan aan ku caawino sida iqaamadii iyo ilmahooda waxbarashada intaba ay ku heli lahaayeen waxay kamid tahay waxqabadka shirkadda Orange waxyaalaha kale ay qabato waxa kamid ah trainingka am tababarada aan siinaa ardada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada intaba waayo tababaradaas laba qaab aan ku bixinaa qaabna waa intana wax aan gudaha ku bixino tababar seminar iyo training intaba qaarna waxaan u isticmaalnaa dibaddan u isticmaalnaa sida ardada medicine oo kala baratay oo internship iyo fellowship oo kale oo dalka dibadiisa aan ugu dirno sidoo kale ardada engineering ka bartay oo kale ayagan sidoo kale waan u dirnaa oo wadamada waxaan u dirnaa Turkiga iyo Qubrus iyo sidoo kale Uganda iyo Egypt ama Masar iyo Sierra Leone sidoo kale waxaan ku soo kordhinay isla sanadkan shirkadda Orange adeegeeda oo xagga training waxa lagu soo kordhiyay college oo lagu baran doono farsamada gacanta oo dalkaasi Turkiga aan rajaynayna adwaaledmo ardada Soomaaliyeed inta daneynaysa inta xiiseyso farsamada gacanta oo kale inay bartaan oo qaybaha wixii farsamada la xiriiro in oo college-kaas uu ka saacidi doono farsamadaas inay soo bartaan oo diblooma ay ka soo qaataan kadibna xirfadiis qofku uu ka shaqeysto adwaaledmo dadaal dheer oo shirkad ay sameysay kamid tahay si mar waliba loo
daboolo baahida ardada Soomaaliyeed laana ardada waxay iskugu jiraan kuwa daneynayo jaamacad ilaa heer masar heer degree inay gaarsiiyaan kuwan wax weeyaan waxay ka doorbidayaan farsamada maanta wadanku wuxuu baahi weyn u qabaa farsamo oo baahi weyn u qabaa in la helo dad xirfad yaqaan oo theoretically aan aqoon xirfad yaqaan oo wax walba ka shaqeyn karo oo electricity iyo waxyaalaha kale oo ku saabsanaa xirfadaha oo baahiyahooda maanta aan dareemeyn wadanka inay ka jiraan intaba college kaas dhawaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu yimaado oo maamul madax ka socodka college kaas oo bandhig badan ay ku soo sameeyaan wadanka oo aan rajaynayna magaalada Garowe in lagu qaban doono bandhigaasi oo ay ku soo bandhigi doonaan wax qabadkooda iyo bulshada Soomaaliyeed waxay ka caawin doonaan marka insha Allah ta'ala company Orange arimaas uu ka shaqeeyaa company Orange waa company international oo kule xafiisyo dalkeena Soomaaliya ilaa 18 xafiis ayuu ku leeyahay Soomaaliya sidoo kale East Africa xafiisyo ku leeyahay sida Kenya iyo Djibouti iyo Uganda iyo Sudan iyo Kenya sidoo kale shirkadu waxay xafiisyo ku leedahay Turkiga iyo Qobrus qaybta Greega iyo bariga Yurub adwaaleedmo marka shirkada mar waliba waxay u taagan tahay bulshada Soomaaliyeed inay caawiso oo baahiyahooda ka caawiso adwaaleedmo ayna ka jawaabto baahiyaha suuqa ka jira adwaaleedmo insha Allah marka mar waliba bulshada Soomaaliyeed meel waliba ay joogan ayadoo aan u fiirinaynin heeb iyo wax aan u fiirinaynin shirkada waxaan gaarsiin xafiisyadeeda meel waliba bulshada si ugu faa'iideystaan qaybaheeda waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum DMI